Soo dhawaada asxaabta, maanta waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka aad subscriberska u qarin lahayd markii aad joogto mobile iyo computer. Aan isla eegno marka qaybta aan soo bixino mobileka aan ku bilaabana insha Allah. Markii la joogo at mobile waxaan galeynaa Chrome, Google Chrome aan tagnaa, waxaan qoranaynaa YouTube Studio, kadib search aan ku dhufano, kadib waxaan ka dooranaynaa linkiga ugu horeeyo ah YouTube Studio. Okay, waa kana YouTube Studio daaqada ugu horeyso soo kacay. Hadda waxaa ujeedaa current subscriber inaa hadda channelkan uu leeyahay waa 3. channelkan wax video iyo waxaas lama soo dhigo, waa channel caadi iskaga samaysan. Marka si aan hawsheena u galno ama shaqadeena u galno, waxaa ku dhufanaynaa settingka cornerka bidix ee hoose, qaybta bidixda ee hoose ku dhufano calaamadda settingka. kadib waxaa kasii dooranaynaa settingka, waxaa kasii dooranaynaa channel. kadib waxaan kasii dooranaynaa advanced setting. kadib kor ayaan u baxaynaa ilaa aan ka aragno subscriber count. waa ujeednaa subscriber count maanta wuxuu noo yahay display. waan arki karnaa calaamadda subscriberska asagoo saan ah display. aan soo xaqiijino YouTube aa tegaynaa. YouTube markaa tagno, kadib waxaa ku dhufanaynaa calaamadda geeska midigta. kadib waxaa ka dooranaysaa your channel. waa aragnaa channelkan oo iska samaysan Cabdullaahi 3 subscribers. hadhow meeshaan ay ka qarnaynaa 3 subscribers ka qarnaynaa. aan ku laabano Chrome keeni. maanta display hadda ka qaadno, calaamadda active aan ka qaadno, waan taabanaynaa. kadib qaybta hoose cancel iyo save, waxaan ku dhufanaynaa save maadaama aan isbedel ku sameynay. save aan ku dhufano, setting saved. hadda waa save garaynay. waan soo fiirinaynaa marka YouTube keeni in subscriberska la arki karo iyo in kale. YouTube-ka kusoo laabanay. waa ujeedaan oo maleynahay in hal xabo subscribe loo jeedin. qaybta mobile Android saan ayaa loo sameynayaa. waxaan ku xijinaynaa qaybta computerka. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe deh, like-tana iyo share-tana iskugu dar si asxaabtaada u gaaraan anigana inoo dhiirigeliyaan insha Allah. mahadsanid.